faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo tirada dadkii ku dhaawacmay ay sii kordhayso. warkan waxaa inoo faahfaahinaya Maxamed Ibrahim Bulbul. dadkii ku waxyeeloobay weerarkii iyo qaraxyadii xalay siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa la gaarsiiyay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. weerarkan oo ay mas'uuliyadiisu sheegteen xarakada al-shabaab ayaa waxyeelo badan waxa ay ka soo gaartay dad badan oo shacab ah. tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii iyo weerarkii xalay lagu qaaday afaafka hore ee madaxtooyada ayaa waxa ay kor u dhaafaysaa 30 qof oo rag iyo dumarba isugu jira, halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay. agaasimaha isbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho oo u waramay SBC TV ayaa sheegay in isbitaalka la soo gaarsiiyay 15 qof oo dhaawac ah oo siyaabo kala duwan ugu soo waxyeeloobay qaraxyadii iyo weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. xalayto isbitaalka Daarushifa waxaa la soo gaarsiiyay dhaawacyo tiro badan oo gaaray ilaa iyo 15 bukaan, kuwaas oo runtii sidii markii dadka ay keenay noo sheegeen ku waxyeeloobay qarax dhacay oo ayagana dhaawacyo meelo kala duwan ay ka qabeen. runtii dhaawacyadaas waxay isku jireen kuwa fudud iyo kuwa culus. ilaahay mahadiis dadkii markii ay dhaqaatiirtii waxay u baahnayeen oo gargaar ay u sameeyeen 8 ka mid ah xalayto ayay laabteen, 6na way jiiftaa. hal qof oo dhaawaciisa maxaa la yiraahaa uu ku yaalay dhanka wadnaha ayaa maxaa la yiraahaa u baahnaa ICU. halkaas qof ayaa maxaa la yiraahaa dadkii eheladii la socday ay baxsadeen. 6da kale oo isbitaal ku jirtana dhaqaatiirtu waxay u arkeen inay u baahan yihiin keer gooni ah. dhanka kale madaxa caafimaadka isbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho inta badan la gaarsiiyo dadka ku waxyeelooba weerarada iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho oo saxaafadda kula hadlay gudaha isbitaalka ayaa sheegay in isbitaalka la soo gaarsiiyay 12 qof oo dhaawac ah iyo 29 qof kale oo dhimasho ah, isagoona sheegay in dadka la soo gaarsiiyay isbitaalka ay u badnaayeen dad shacab ah. dadka noo yimid xalay ama dadka dhaawacyada ah ee shaqaqooyinka iyo qaraxyada xalay dhibaatooyinka soo gaareen ee isbitaal Madiina soo seexday guud ahaan waa 12 qof. 10 qof oo kamid ah 12 kaas way noo jiifaan isbitaalka, 4 kamidana 10 kaas qof ee isbitaalka jiifta qalliimaha culus ay mareen, caloosh ayaa laga qalay qaarkood wayna fiican yihiin hadda. halka 2 qof oo kamid ah 12 kaas qof aan adeeg caafimaad u sameeyna inaan dib u noqdeen. marka intaasi waa dadkii noo jiifay iyo dadkii aan daaweyno noqday. dadka oo dhimashada ah marka isku daro 30 qof waaye, 27 qof ayaga oo meed ah ayaa loo keenay isbitaalkan ku keenay, halka 2 qofna anagoo shaqadii caafimaad u hayno isbitaalka ku dhinteen. sidaa darteed 29 qof oo meed ah oo dhimasho ah ayaa qolka dhimashada la keenay qolka meedka. halkan waa gudaha isbitaal Madiina oo la soo gaarsiiyay inta badan dadka ku waxyeeloobay weerarkii iyo qaraxyadii xalay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Maxamed Ibrahim Bulbul, SBC TV, Muqdisho.